sabab ballaan oo lagu xusay dhalashada Nabi Maxamed dadkana fikirku saacada ayaa waxa lagu qabtay magaalada Buuhoodlo munaasabadan ayaa waxa ka soo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ee magaalada Buuhoodlo ugu horeeyay culumo cuqaal iyo bulshada qaybaha kala duwan madrasooyinka Quraanka ee magaalada Buuhoodlo wadada weyn ee magaalada Buuhoodlo ku soo maray socdaal iyagoo qaadayna shiidooyin ugu dambeyntii ayaa waxa la isugu yimid masaajidka Rawda ee magaalada Buuhoodlo ka ayaa waxa ka hadlay culimadii ka soo qayb gashay iyagoo oo ka sheekay taariikhda Nabi Maxamed nabadgelyo korkiisa ha ahaatee دكتورنا قاعدين نشيدوين حرمي سيدنا سيغفرون الاسماء صفاتي يا نبي يا امام الحرمين قريب وحوها رسولك صلى الله عليه وسلم dadka ka ugu qurux badan ka ugu wanaagsan buu ahaa waxa lagu tilmaamay xadiiskii Nabi Haal markii rasuulka la tilmaamayay ya talaala wajhu talaalu al-qamari laylatul badr rasuulka wajigiisu u iftiimi jiray wanaaga iyo khayrka ka muuqday sida uu dayuhu u iftiimo habeen 14aad ah ninkii wadanka Faransiiska ugu sareeyay madaxweynaha ka ahaa ayaa wuxuu la soo baxay khubtigiisii iyo xumaantiisii iyo xagjirnimadiisii gaalnimada yaani waxa weeye ku jirtay ayuu wuxuu muujistay isagoo awoodiisii madaxweynenimada adeegsanaya ayuu maartay cod dheer wuxuu ku yiri inuu isaguna ku raacay ninkaas gaalka ahaa النبي صلى الله عليه وسلم ka sheegay isagoo handidaad iyo ugu daray maartay dadka muslimiinta marka muslimiintu marka way ka falceliyeen way cambaareeyeen anaguna waa la cambaareynaynaa waxaan leenahay la'natullaahi alayk adigana sida ka loo soo qabtay ilaahay ku soo qabta baan leenahay hadaadan hidaaya aanay ku qorayn la'nad allah kugu rida baan leenahay gaalka la yiraahdo madaxweynaha Faransiiska Macron la yiraahdo dadka kii aruushe qalbiga iyo damiirka iyo aqliga daweeyo diinta iyo aqeedada nabigii u dirire daaya habiibi ducaya salaamba ha noqdeen dushaade mawlidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam waafajinta ilaahay uu soo waafajiyay nimcadan weyn ee ballaaran ee aynu ku muujinayna dareenkeena kalgacaylkeena maxabada aynu u hayno nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee isugu yimi xafladan quruxda badan ee ay ku muujinayaan farxadda ay ku faraxsan yihiin dhalashadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam isugu yimi ee uu isu keenay jacaylka rasuulku Najaa Maxamuud Salaad telefishinka caalamiga bulshada TV magaalada Buuhoodlo